السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم صوم وناكسن سو دواادو maanta waxaan ka wada hadlaynaa videogeeni labaad qaybtii labaad videogan u bixinay xaqeelinana baro caruurtaada dabeecadahooda waa muhiim caruurteena dabeecadahooda inaan barano waayo waxay naga saacideysaa inaan isku soo dhawaano inaan isfahano inay buuq la-aan koraan inay hadhowdi markay weynaadaan oo teenager noo gaaraan noo noqdaan inay wax noo sheegtaan meesha dadka wax u sheegi lahaayeen oo suuqa la sii marsi lahaay waayo anaka wax noo sheegtaan waan toosi karnaa wixii saxan u sheegaynaa waayo waalidka shaqadiisa wasaas laakiin hadaa isfahansaneen caruurta sirtiisu ka qarsana marka waa muhiim inaan intay yaryar yihiin caruurta dabeecadahooda aan barano aana ku caynin aana magac ugu yeelin oo laakiin aan u isticmaalno sida caruurtan iskugu soo dhawaan lahayn oo isku fahmi lahayn xagga tarbiyadana aan ku tarbiyay lahayn marka example hadaa idin siiyo caruur waxaa jirto ilmo qaar waxaa jiro oo jecel inay guriga wixii joogo dhan u taliyaan oo ilmihii guriga joogo iyaka waxay dhahaan number 1 anaa galaayo wax kasto anaa wax kasto ku fiican haddii mar wax sheegaan warkooda la inuu jiro la soconaya dhahaan buuq kiciyaan qaylo kiciyaan badanaana waalidka ka ra'ayaan sababtoo ah markuu waalidka uu dhaha waxaana rabaa ay dhahda ama uu dhaha may haywa suuqa marka dhowr mara suuqta lagu arkaa waxaa igad may makuu gada hay iska qaado marka caruurtaas camal wax ka reeyo caruur kale iyakana waxaa jira waalid ka reeyo waxaan ka wadaa waalidka ka qaato wax alla waxay u baahan yihiin kaasna ma qayliyo ma booqo laakiin su-aasha dhinacaana ugu keenaa dhankaas kaloo kasoo maraa isla wixii asagoo ama iyadoo og xagga kaloo kasoo marina xagga waalid asagoo raalli ka saxiixdaan taasna caruurtii kala arkayaan ay dhahayaan aabbo iyo hooyo cunugaanu naga jecel yahay mana rabno marna caruurteena inay dareemaan inaan kala jecelnahna laakiin ilma qaara maskax ku isticmaala waxa la xaribtina ka qaada waxa la xirabaana ka qaadana marka dabeecadahooda inaan saa u kala barano waayo oon fahano oo caruurta hadda ka soo qaad midka oo leaderka oo rabo inuu ilmaha maanta u faano maanta oo dhan anana baron dhahay kaasay kula dhaqmi karna maadaama uu jecel yahay ama ay jeceshahay inay number 1 gasho wax kasta oo ida ka raasa ama sakare xagga guriga marka caawa dhaheen waxaa dhihi karnaa saacada ku qabtay 2 saacadan ku qabtay meeqa ku soo nadiifi karnaa waa ka faa'iideysana ma baan waxaa waxbarasho marka la saacadan ku qabtay saacadaas ninkii reeyo ka soo qaad saacadaas ninkii reeyo 10 ku soo xifdi karto marka maxaa taas ku sameyn karnaa kii kale oo asne oo quiet ka ahaay asna sida kale la wixii jecel yahay alula dhaqmaya wuxuu neceb yahayna waa laga ilaalinaa wuxuu jecel yahay hadhow darasaas oo ka marka qalad ay galaan wuxuu jecel yahay lagu cinqaaba isku si hada dhowr caruur ilaahay kugu irsaaqay isku si ha ula dhaqmin waayo midkaan wax uu ku fiican midkaan wax uu ku xun had sidoo kale markaad qaladaadka ka saxeyso isku si ha u sixin sababta midba meel buu ku liitaa mid buu ku fiican maxaa kale kan ka soo qaad caruurteena markay iskuulaad meelaha goobaha waxbarasho ka imaan midba ku imaana wax alla wixii dhacay iskuulka dhacay goobaha waxbarasho ka dhacay meel kasta ka dhacay wax alla wixii dhacay ridunka ka soo galay ku sheegaysa ama ku sheeg tududu wax ka soo ogta mid kalena maxaa dhacay maan waxba maxaa soo barat waxba
maanta ma isku dhacday qofna shib markaas markan tururku dhaho ku hadlo soo bakan waxba ma dhicin waxba dhahay si uga hadal siina waxaa laga yaabaa kaas inuu waqti u baahan yahay isla markii iskuulka saan ugu imaado ama goobaha waxbarasho ka imaado waxaa weydiin ilmaha qaar isla markii wax ma sheegi karaan waxay u baahan yihiin inay maskaxda ka shaqeysiyaan process gareeyaan laakiin waxaa u sameynaysaa time waqti hebel markii la gaaro ani adaa sheekeysanayno waxaana ka wada sheekeysanayna maanta goobaha waxbarashada iyo wixii ka dhacay waana muhiim in caruurteena oon iskaga dirno meelaha waxbarashada oona ka daba tegin oo maanta dheegooda soo waxa dee dhulalkan gaalada joognana wixii lagu soo shubo aan ka shubin waa dhibaato marka waa inaan waqti u yeelnaa kan kale ku hadlaayeen alxamdulillah kaas waqti ma u baahna saa uu ku shaamslo markaas sixi kartaa marka ma inaan caruur qaar waxaa jiro markaad wax u darsatid waxaa soo qaba ama saan samay cabaar kusii qaadan iska sii fadhinayo kuwaasna waxay u baahan yihiin inaan beeshin badan lahaano oo ku celcelin hadalka saan samay ma istaagta ma kan yeesh aad ka badinin laakiin waqti aan siinaa oo maadaama ay culus yihiin qaar baa culus qaar baa fudud qaar baa si waayo qof walba cunugiisa oo ka aqoon badan yahay laakiin ma muhiim qof walba cunugiisa oo garanaya laakiin muhiimadeeda waxaa waaye inaan cunuga meesha ku jilcan yahay lagu caynin laakiin oona magac looga yeelo dabeecadahooda